waxaa halkaas aan soo jeedinayaa dhalinyarada jaaliyada Malaysia ee Soomaaliya joogta oo nagala qayb galay barnaamijkan ballaaran ee lagu caawinayo Iqra Bashiir Bire laguna socodsiinayo wixii bini aadama oo bini aadama kaalmo bini aadama u fidin kara kuwaas oo magacyada kala yihiin Absabuurame iyo dhalinyarada kale oo hadda la socota aftaan waxaanu halkaan ka soo jeedinaynaa tarnoleedkii aan soo marnay anigu aan soo maray taariikhda waxay ahayd waxaan ka tirsan ciidamadii hore ee Soomaaliya kadibna markii dowladda Soomaaliyeed ee dhexe ay burburtay waxaan noqday xoogsade anoo ka shaqaysan jiray wixii habka shaqada iyo yimaada amaali maqaayado qoriyo jabis ismaha guryaha iyo waxyaalaha noocaas ah oo ka shaqaysan jiray walaalayaal waxaa ka bacdi la kulmay anigoo sidaa u shaqeeyo sidaas ka tahay waxaa la kulmay gabadha ayaa xanuunku wuxuu haleelay sanadku markuu ah 2009 bishii 10 Oktoobar ayaa waxaan ku aragnay nabarka isha biyaha oo soo baxaya markaas aanu raadinay inaanu meesha joogo dhaqtar maahay inaanu dhaqaatiir raadino dhaqaatiirta raadinteedii waxaan ka bilownay Puntland baan ka bilownay magaalada Garowe Boosaaso tagnay Boosaaso waxay ka qaban weyday waxaan tagnay Hargeysa Burcaan tagnay waxay ka qaban weyday Hargeysa tagnay waxay ka qaban weyday Addis Ababa tagnay iyo qowwada inta dhammaan dadka meelaha kala kulmay cudurkaas nooc yahay way garan waayeen inta kadib baan waxaan aadnay annagoo baabuur dib badan saaran oo marnay wadada mooyaalay inaga isku xigta oo wada dheer oo dib badan ah oo in badan maalin habeen lugeynayni ayaa waxaan tagnay Nairobi markii aan tagnayna waxaan noo sheegay gobol inay qabto cancer telecom cudur inuu oo laba cudur oo isqabaasana mid telecom yahay oo indhaha uu ku dhaco kan labaadna uu yahay mid jirka kale qaybihiisa kala ku dhaca kadib waxay noo sheegeen dhaqaatiirtu in la bixin doono isha bidixda ah gabadha Iqra Bashiir Bire markii isha la bixiyay waxaan joognay magaalada Nairobi muddo 6 bilood aan joognay 6 bilood ka baadina waxaan ku laabanay Soomaaliya annaga oo naga dhamaatay sahaydii iyo wixii aan haysanay wixii kaalmay karo Soomaalida kaalmada keenana ayaa ay dhamaatay markii aan gacan maray dadkii waxaan ku laabanay Soomaaliya markaan tagnay ishii kale oo labaad oo bidix ayaa namarkii ka soo baxay 2011 markay ahayd annagoo joogna magaalada Gaalkacyo ayaa waxaan aragnay gabadhii ishii bidix oo u fiyoobay oo haddana uu nabarkii hayo markii nabarkii aan ishii ku aragnay waxaan raadsanay wixii nooliya oo aan ku mari lahayn wadada ama isbitaal ku aadi lahayn intii aan nooliga baadgoobaynay oo aan ka daba laabanay nooligii aan diyaarad ku lahayn ayaa nabarkii ishii ku weynaaday nasiib wanaag waxaanu helnay inaanu nimaadno Malaysia annagoo gabadheedii jiraan wadana wata markii aan dhaqaatiirta Malaysia la kulmana waxay ii sheegeen inaysan ishu rajo lahayn in la bixiyo mooyaane sida daraadeed ishii labaad oo isha bidix ahayd ishii koowaad oo isha midig ahayd waxa lagu bixiyay Nairobi ishii labaad oo isha bidix ahaydna waxa lagu bixiyay Malaysia sida hadda waxaanu ku sugannahay magaalada Kuala waxaanu joognay muddo 3 bilood iyo saada waxaa naga dhamaaday sharcigii aan ku joogno waddanka waa naga dhacay waxa kale oo dhibaato xoog naga haysata xagga hoyga iyo nolosha annaga oo aan ku lahayn waxa macrifa magaalada tan hadda meel waxaan ku suugaynaa deed niman ay dhalinyarada oo jaaliyad kamid ah yihiin ayaan fiidkii maanta maalintii magaalada sagaara qabna
أنو كنول وحي عن سوي هرنو مقالة سوي هرنو أو بريء عن كسوي هرنو بين آدم كمقالة شوي هذا هو حان كسرنا يكون كسرنا هاي حالات خطر وارد ونجاها يسقط حاجة نرشة يهوية يشرع صدق عقب أو يعني بحول وهي هودرنا هذا الشرع يجوا تام هودرنا هذا كبرنا يرى موحل بعوني راشن كي وح عيمين هاي وح عيمين له الكلمة يضع عافمات كي ولي وهو سيو وسعي لا تجسنا قبل نسمع هاي شيء كان الله عنه إن الله هاي بناء كلام وحبة داول وسيكرينه أنا يقولين ممكن أقاتير ثاني يقعد خصوصيا ما هنا إن أم بناء كده ويستو أو بناء كده وكراسي أبغى غير هيك أنا كده ويستو ما يقرأ وهيقول لي المركي أيوة دوّنا وحنا قبل هاي إسبار كنا ساعته إسبار كامل كنا ساعين هاي وحنا لقى دبوس اللي قال العق فربنا بعد دبوس هذا ما بيقال يا إلا إذا كنا بيا من هاي أو أنا نسكون معيسة هاي دبوس كذا سمركا والعق هذا أنت هذا مركا هذه إسبار كذا بحضر معنا وذكر هذا يقول عنا لكن إسبار كان العق تيسه شنت البريء سيحنسي يداوي قادنيسي واحد يريد يدبوس صوت يسار العقد هي العقد بدل ما يقدر يسال أنا درت هذا وحوي وقت هذا أنا وصلنا أنا هذا ساعة ده سوي شو ومهني كرانو عانيه يعرف كده ما يعرف سبحان الله يدنا وقف شرا نرش واحد يبص في كحران تاي عانها يوحي يرونا ما هو غاريا هذا بقى أخي الله دي كده ما بقى عبيسه وهكذا توي ده كسي درن مركي أبو حراني لها قف دجاج فاليوم ما هي قف شيء كلام ماهي وهو أفريقيا تسعير يمشي كذي وبويسة واحد يقبل درنا ملهي أو يقبل درنا ملهي توني فرق ولا سيدا مرة واسعين هي مرة دوشة بسيدة مرة واحد صبر هي ولاد الذين هي وهي عنون هاي سيدا درادي مع قصنا هي هيدا وحكامية إيه درت الصومالي ده يحل كلام هيدا وحكامية ما أدوك ما بيستهلك شو وبسيدة إنك قبل ناس كفيريان سووري ده يدبعتري ده أنا وعاويان أما أي قصة باكستان قبل ده إخراج بشير الدبيع وسدحشرين نهي كويري وأن أبهد بنا يعني واحد تيو يعني كده من هذا ويها أنا هيستنا أي هري وهو مرينا ودبيع كمان أنا والله أصلا الدنيا إسبانية كل وريه مثلا صدق مع الجوالات يوحنا نسكون مرسيين سد الدولار برا نسكون مرة ماشي ويا يوسهل وهاي ماشي عن جروي وعن كان صعد بلاوي العاد كل يحاولوا بعض أنا وياه أوسني يوحنا هذا كيل كربا والهر مريي هذا وحنا قص بلارن وشراء الدنيا وحيا كل اليوم كذا كنا ولا حريرة هذا صافلك يا وحاوية ملك استهجوا iyo dadka islaamka ayagu haysta wax sadaqaysanaya bishii gaar soo dhow wax sadaqaysanaya intaba waxaanu ka codsanaynaa in ay nacaawiyaan aniga iyo gabadha yar Bashir iyo aniga magacaygu ah Bashir waxaan u mahadcelinayaa dadka dhalinyarada ka tirsan jaariyadda ee aan qabiilka lahayn ee islaamnimada ay u soo gudbitay oo ka damqatay dhibaatadayda oo halka galabtayda joogta ayaan waxaan mahad ballaaran u celinayaa kuwaas oo iga duubay ina suura galiyay inaan adduunyada la hadlo waa dadka jooga nooc kasta ha ahaadaan hogaaminayo masal caymo caymi chairmanadaas uu chairmanka yahay qabanqaabada shirka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.